بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الأحبة في الله وحلقتني أفرية تبناد اتحانهني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن شاء الله تبارك وتعالى. عنوانك حلقتنا نوح نقندونا النفاق العملي. نفاق عملي يعني النفاق nolol maalmeedka la xiriira ayuu noqon doonaa. waxaan shicaar oga dhigi doonaa sidoo kale mu'minun fi lmasjid wa faasidun fi lmucaamala. markuu masjidka ku jiro waa mu'min owliye ah, waa wadaad, waa nin qiimo leh, waa nin xishooda, waa nin sariigta. marka uu dadka la mucaamalayana waa mufsid, waxbuu fasahaadinayaa. dadka noocaas oo kale ah ee afcaashoodu aysan islahayn, oraahda iyo ficilkuna aysan islahayn, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun. waxaa allah subxaanahu wa tacaala agtiisa aad looga cadhooday. maqtigu waa guhaad, waa carada daran weeye. ilaahay wuxuu aad oga cadhoodaa an taquluu ma laa tafcaluun, inaad dhahdaan waxaydaan samaynaynin. nabigeenna muxamedana waa kan leh aayatu lmunaafiqi halaaatun idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa idaa tumina khaana. saddexdaba waa been. qofka munaafiqa ah walciyaadu billaah, calaamadaha lagu garta waxaa ka mid a markuu sheekaynaya waa beenaale, markuu ballan galana waa beenaale oo ballantii ma ilaalinayo, markii la aaminana waa beenaale oo ballantii kama soo baxayo, ammaanadii wuu dayacayaa. ballantii kama soo baxayo, ammaanadiina waa dayacayaa. waxa uu ku hadlayana waa been. arrinka isaga ahna calaamadaha munaafiqa lagu garto inuu yahay uu nabigu noo sheegay. ibnulqayim calayhi raxmatullah waxa uu leeyahay addiinu kulluhu khuluq, diinta kulligeed waa akhlaaq iyo dhaqan. faman zaada calayka fi lkhuluq zaada calayka fi ddiin. qofka kaa akhlaaqda wanaagsan, kaa xishoodka badan, kaa sariigashada badan, kaa ammaanada badan, kaa runta badan, kaa maaragtay sooriyeynta badan, waxaa weeye ninkaa isaga ah waa kaa diin badan yahay weye macnuhu. walaalayaal, haddaynu si dhab ah u fakarno, waxaa weeye noocyada nifaaqa waxaa ugu daran horta midka ictiqaadka oo caqiidada gala, oo qofku inuu uurka gaal yahay oo afkana uu ka leeyahy ilaahay baan rumaysanahay, gudahana uusan ilaahay rumaysnayn. laakiin waxaa isna arrin aad u daran ah midka dhaqanka gala, oo aad arkayso addoonkii markuu masjidka joogo fi safi alawal ayuu khushuucsan yahay, markuu masjidka ka soo baxana dadkiibuu dulminayaa, beecshirihiibuu ku dulminayaa, dadkiibuu khiyaanayaa, miisaankii ma dhammaystirayo, ballantiibuu ma aragtay ka baaqanaya oo ballantii lala ballamay cudurdaar la-aan ayuu iska maqnaanayaa. maalintiisa waa soomaya, laakiin wuxuu ku afurayaa xuquuqul insaan, xoolo dadow oo dhac ah, oo rishwo ah, oo xatooyo ah uu og yahay ayuu ku afurayaa. habeenkii oo dhan qiyaam buu u taagan yaho waa sooman yahay, haddana waxaa weeye ammaano ma laha. kaasi waa nifaaqa camaliga ah. marka xagga muuqaalkana nin quman buu u egyahay, jawharka iyo qalbigana waxaa weeye nin qaadan oo aan maaragtay damiir lahayn, waddadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna aan haynin weeye. maxaana looga baahan yahay marka walaalayaal? waxaana looga baahan yahay alsidqu waalamaanatu min aliimaan, inaan ogaano runta iyo ammaanadu inay iimaanka ka mid yihiin. iimaanku shacaa'ir iyo bandiirad, calan boor meel lagu dhegsada ma aha, loogo qofka uu maaragtay samaystana ma aha, calaamado gacmaha lagu xidhana ma aha, dhar la xidhana ma aha, ee waa akhlaaq lala noolaado. runta oo la sheego waa cibaado, ballanta oo la oofiyo waa cibaado, ammaanada oo la ilaaliyo waa cibaado. waana tan uu suubanaheeni leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa iimaana liman laa amaanata lah. iimaan ma laha qofka aan ammaano lahayn. qofka dirham iyo doolar lagu ammaanaystay khiyaana,
sidee looga sugayaa qofka isagaa diintiisa inuu ka run sheego? in yaroo adduunyaho loo dhiibay ayuuba khiyaanayaa oo uusan ballantii ka soo baxaynin inay diintiisu run noqoto. qofka isagaa lagama rajo qabo. ramadaan laysa mawsiman shakliyan. ramadaanku sidaan in badan soo sheegnay nabigana uu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam, wax xiriir lala maaha shakliga iyo hay-adda iyo sidaad u eg tahay. ramadaanku maro la xidho 30 maalmood ee bisha soon ma aha oo dabadeedna la iska furo ma aha. ramadaan habeenna inta la ooyo haddanana aan la isbedelin ma aha. ramadaan ma aha qur-aan 30 maalmood xoog loo akhriyo haddanana aan wax isbedel ah iyo wax doorsoona uusan imaanaynin. qiyaam la taagnaado oon istiqaamo lahayn ma aha. sadaqooyin fara badan oo la bixiyo oo aan cadaalad lahayn ma aha ramadaanku. ramadaanku waa madarasatu sidqi maca allah. waa in run la sheego, waa in naftaada aad run sheegto, waa inaad isbedesho. laakiin haddii ramadaankii uu dhammaado oo sidii anta kama anta adigu kii un aad tahay weli, waxaad ogaataa caloosha unbaad ka soontay ma ogiye qalbiga kama aadan soomin. waxaan kaloo marka walaalayaal odhanaynaa qofka markuu masjidka joogana nin wanaagsan ah, marka uu suuqa joogana nin kale ah, isdiwaajiyada noocaasoo kale ah, isdabamarka iyo isdiidmada noocaasoo kale ah islaamku ma qabo. qofka waxaa laga yaabaa salaadda inuu ku khushuuco, laakiin waxaad ogaataa allahu tabaaraka wa tacaala yanduru ilaa cadlika fi lmucaamala. cadaaladaada markaad dadka la dhaqmayso ayuu ilaahay eegayaa. 2 ragcadood ood si fiican ugu khushuucday, runna aad ka sheegtay, baa waxay ka khayr badan yihiin 1,000 ragcadood oo aad dadka markii aad ka baxday haddana aad dadka markaad tukanayso haddana dadka aad khiyaanayso. waxaa marka walaalayaal loo baahan yahay markaynu mucaamalayno addiinu almucaamala inaynu mucaamalada run ka sheegno. beecshiraha inaynu run ka sheegno waa cibaado. miisaanka iyo markaynu wax kala gadanayno cadaaladda inaan ku dadaalno. shayga aan iibinayno ceebtiisa inaan caddayno, markaasuu ilaahay noo barakaynaya. waxaan aan iibinayno inaan dhahno ciladaa iyo ciladaasuu leeyahay, aan run ka sheegno. marka aynu ballan qaadnana inaan ballantii oofinno. marka waxna lagu ammaansadana ammaanada inaan gudanno. ogow macaamilo kasta iyo heshiis kastood gelayso, ama afka ka gal ama contract qoraala ku gale, malaa'igta ayaa iyadana markhaati ka hoo saxiixaysa. dirham kasta oo ku soo gala ama ganacsi ha kugu soo galo ama si kale ha kugu soo gale, imaa shaahidun laka aw calayka, ama adiguu kuu markhaati furayaa ama haddii kale adiguu kugu markhaati furayaa. waxaynu odhanaynaa marka walaalayaal, qof walboo masjidka markaad joogto addoonka ilaahay baa tahay. suuqa markaad joogtana addoonka ilaahay baa tahay. dhaqankaada hagaaji. salaadda markaad tukanayso, marka aad sooman tahay, istiqaamadaada ha noqoto mid aan weligeed dhammaanaynin. ogow ina allaha laa yanduru ilaa kahrati sujuud walaakin yanduru ilaa sidqi alquluub. sujuudda badan iyo qiyaamka badan iyo gaajada iyo soonka ilaahay shakliyaadka ma eegaye qalbigaada inaad run ka sheegaysi inaadan ka sheegaynin, dhaqankaadu ma toosan yahay, ma isbedeshay, buu alla subxaanahu wa tacaala uu eegayaa. idan walaalayaal, nifaaqa camaliga ah waa mu'minun fi lmasjid sidaan soo sheegnay, wa faasiqun fi lmucaamala. markuu masaajidka ku jiro waxaa weeye waa khushuucsan yahay, waa nin wanaagsan. markuu dadka la mucaamalayana waa faasid. waxaa weeye waa mid waxba aan lagu aaminaynin weeye. siyaasadda markuu ku jiro waa beenaale, waa turufatoore. waxaa weeye sidii uu kursigaa ku heli lahaa basuu ka shaqaynayaa. haddana waxaa weeye waa kaaga horeeya masjidka ilaahay. taas weeye marka nifaaqa camaliga ah, waana fasaadun fi lardi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa. ilahay waxaan ka baryaynaa in uu mucaamalkeenna hagaajiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu afkeenna iyo uurkeenna ay islahaadaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu irsaaqo run marka aynu hadlayno, marka aynu wax samaynayno iyo marka aynu fakerayno intaba. jazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.